magacayga waxaa la dhahaa Amira Cadawe maamulaha hay'adda Beautywell and waxaan ahay cilmi baare uu takhasuskaygu uu yahay caafimaadka bulshada waxaan dhigaa University of Minnesota waxaan aan baraa dadka maadada loo yaqaan environmental justice ololaha aan ka shaqeeyo ama campaign-ka aan ka shaqeeyo waxaa waaye ka hortagga sidii loo joojin lahaa waxa loo yaqaano colorism oo ah qofka bini'aadamka oo midabkiisa la nacsiinayo khaasatan saameyn weyn ku leh dadka madow iyo maaragtay sidii looga hortagi lahaa dadka inaysan iscadeynin dhibaatada ay leedahay iscadeyntii qofkiiba lagu kalifinba in uu iscadeeyo iyo dadkii iscadeynaya dhibaatooyinkii soo gaaray oo maaragtay chemicalska ay marsanayeen sidee looga caawiyaa sidee maqaarkoodii caafimaad kale ay u helaan waxa igu dhaliyay in aan arintan ka shaqeeyo oo ah ololaha sidii loo dabargoyn lahaa ama loo joojin lahaa colorism ama iscadeynta marka aan yaraa sideedaba haddaan ka hadlo Soomaalida dhaqankeeda colorismka dhaqankeena aad ugu jira colorismka waxa loo yaqaan waa qofkii midabkiisa la nacsiinayo ama midabkiisa laga hadlayo dhaqankeena aad ayay arintaasitun uga mid tahay marka anoo yar markasta dadka midabkeyga ayay ka hadli jireen maxaa yeelay qoyskeena aniga ayaa ugu madow kala way midab furan yihiin markasta dadka ee midabkeyga ay ka hadlayaan iyo dadka kale oo arka midabkooda laga hadlayo markii aan Mareykanka u guurayna anoo yar Mareykanka markaan ku korayayna dadkii waxaan arkay midabkooda sidaas oo kale loo nacsiinayo iyo dadkii oo iscadeyntii aan Soomaaliya ku arki jiray weli sameynayo oo midabkooda doorinayo oo creamyo isticmaalayo marka waxaan arkay dadkii in midabkooda uu doorsamayo si xunna oo si caafimaad darrana uu doorsamayo ayaan waxaan ka arkay qaybta kore oo jirkooda externalka ayaan ka arkay marka waagaas markaan aan bilaabayo ololahan cilmi baaris ahaan ayaan ku bilaabay waxaan ku jiray graduate school takhasuskayga ayaan sameynayo jaamacadda 11 sano ka hor ayay ahayd marka 11 sano ka hor ayaan research ku sameeyay aan bilaabayna wacyigelintaaniitin iyo ololaha sidii arintaaniitin looga joojin lahaa Mareykanka ayaan ku bilaabay haddana waxaan expand gareeyay ama aan ku sii siyaadiyay sidii adduunka kale ma aragtay saameyntaas looga yareyn lahaa maxaa yeelay Mareykanka dadka ku nool adduunka meelo badan ayay ka imaadeen meelahaas badanna waa laga isticmaalaa Soomaalida kaliya ma ahan marka Soomaalida laakiin waan ku bilaabay cilmi baarista horta dadka waxaan rabaa inaan fahansiiyo maxay tahay waxa la isku cadeeyo waa creamooyin iyo saabuuno ee dadka ay mariyaan jirkooda badanaana dadka waxay u sameeyaan inay u qastaan in ay iscadeeyaan wax kasto dadka waxaan rabaa inay fahmaan wax kasto oo la isku cadeeyo waxaa ku jirto chemicals oo sun ah 3 chemical ayay ka samaysan yihiin markii la fiiriyo ingredientska waa mercury maadada la dhaho mercury oo sun ah hydroquinone oo iyadana maado kale oo sun ah iyo topical steroids highly potent steroidskana waxaa waaye daawo ahaan ayaa loo qoraa dadka laakiin qofkii bini'aadamka markuu jirkiisa ka badiyo sun ayay isku bedelantaa qofkii uu ku xanuunsadaa marka dadka inay fahmaan waaye wax la isku cadeeyo oo wanaagsan oo safe ah ama qofkii saameyn u yeelanaynin ma jirto maxaa yeelay hadda intaan sameynaya cilmi baaristay dadka interview gareeyay aan la hadlo dad waxaa jira aaminsan in waxyaabaha qaarkood la marsado ay yihiin waxyaabo dabiici ah wax la isku cadeeyo oo dabiici ah ma jirto haddadaan ma aragtay la hadlayo Muqdisho product Soomaali product ayaan ka testgareeyay ka baaray mercury iyo lead ayaan ka wada helay kulligood halka cream ayaa waxaa laga yaabaa inuu ku jiro mercury iyo lead ba isku wada jiraan marka waa chemicals oo aad iyo aad
sun u ah. Marka maxay tahay waa saameynta hadda mercury-ga oo kale qofka bini'aadanka wuxuu ka dhaawacaa isla markii ma aragtay maskaxda iyo kaliyaha. qofkii maskaxda markuu ka dhaawaco neurological dhibaatooyin ayaa ku dhacaya, qofkii waxaa ku dhacaya depression, waxa loo yaqaano murugadii oo ma aragtay qofkii u murugoonayo. dadka qaarkood ilmaha qaasatan markii hooyada ay uurka leedahay ama markay ilmaha yar yihiin ee naaska nuujinayso, chemicalka la dhaho mercury-ga naaska caanihii u gudbaysa. markii naaska caanihii u gudubto ilmihii maskaxda ayay ka dhaawacaysaa, soo ilmihii waxaa ku dhacaya neurological problems. waxaa laga yaabaa hadalka inuu ka daaho, ilmaha uusan hadlin xataa ilmaha markay yar yihiin. waxaa laga yaabaa in ma aragtay ilmahaasitu maskaxda ay ka curyaamaan. waa neurological problems, ma ogtahay inay maskaxda ka curyaamaan. in ilmihii xataa hadday weynaadaan learning disability wax la dhaho, waxbarashadoodii ay ka curyaami karaan, ay saameyn oga imaan karto. tan kale keliyihii ay ka dhaawici karto, qofkii weyn iyo ilmihii yaraaba keliyihii way ka dhaawici kartaa. dadka qaarkood maaragtay si xun ayay keliyaha uga dhaawacdaa. soo mercury-ga labadaas ayaa aada uga walwalnaa. iyo tan kale oo ah haweenka qaasatan uurka markay leeyihiin saameynta ee qofkii uurka lahaa iyo ilmihii ay u keenaysa. maxaa yeelay isla markii qofka uurka la markuu isticmaalo maskaxdii ayay ilmihii ay ka dhaawacaysaa. soo maadadaaseytun waxaan uga walwalnaa maskaxdaas oo dad qofkii ay ka saameynaysa iyo keliyahaaseytun ay saameyn ku yeelanaysa. tan kale uu mercury-ga keeno wuxuu dhaawacaa qeybta la dhaho endocrine systemka oo jirkeena oo kala wado sokorta jirkeena. soo dad badan waxaa jirta markay qeybtaaseytun ee dhaawac gaaro sokorow ayaa ku dhaco iyo dhiigkarna qofka wuu ku dhici karaa. soo taasna way keentaa mercury-ga oo jirka galayo. hydroquinone-ka badanaa wuxuu qofka u saameeyaa qoraxdii uma dulqaadan karo qofkii, jirkii ayaa guduudanayo, adkeysi qorax ama kuleel yar ma yeelan karo. qofka qaarkood xataa dadka qaarkood cunto ma karin karaan, maxaa yeelay jirkoodii wejigooda wuu guduudanaa isla markii. jirkii wuxuu yeelanayaa dildilaac, xariiqtimo oo dildilaac ah ayuu yeelanayaa. qofka jirkiisi xataa hadduu jeexmo in laysku tolo way adkaanaysaa, maxaa yeelay maqaarkii ayaa aada hydroquinone-ka u daciifinaysaa. soo qofkaaseytun markuu waqti dheerna uu sii isticmaalo waxaa ku dhaco kansarka maqaarka galo ayaa kankra ku dhici karto qofkaaseytun. steroid-kana dhibka uu leeyahay waxaa waaye dadkii jirkooda ayay ka badinayaan, addiction ayuu qaadaya. qofkii waxaa laga yaabaa hadduu iska joojiyo xataa jirkiisi inuu u baahdo steroid inuu marsado. tan kale oo lagu arkana in uu qofkii u keeno hormonal dhibaato oo jirkii qofkii qaasatan haweenka hormonkoodii oo ma aragtay jirka in uu imbalance uu ka dhigo ama ma aragtay uu isla simi waayo, dhibaato taasna ay oga imaato. laakiin badanaa mid aan ku aragnay waxaa waaye steroid-ka addiction-ka oo qofkii jirkiisi uu aada u baahanayo inuu markasta marsado. tan kale hadeertaaneytun led ayaan ka arkay kriimooyinka meelaha kale dhan aan ka testagareynayay Mareykanka iyo Kenyaba ledka ma arkin, laakiin kan Soomaaliya waxaa aada uga naxay ledna wuu ka buuxaa. ledna ma aragta waa mercury-ga camal saameyn weyn ayuu leeyahay neurologically, maskaxdii uu qofkii uu ka dhaawici karo. sida haddaa sheegay jirooyin badan oo maskaxda ku saabsan ayuu ledkana uu keeni karaa. waxaa waaye waa chemical kale oo maado kale oo chemical oo aada sun u ah waaye. marka qofkii bini-aadanka ahay taas waxaa usii dheer niyadii qofkii kuma faraxsano midabkiisi. colorism ahaan waa la impact gareynaa, qofkii midabkiisa la nacsiinaya iyadooba ahaanba keliya sunta oo cadeynta oga imaaneyso. qofkii depression ayaa ku dhacayo, maskaxiyan qofkii kalsooni ma laha. taasna saameyn weyn ayay dadka inta ay ku leedahay ayaan arkay.
marka dhibaato weyn iyo degaankii ay saameynta hadda environmentiga productigan markii la isticmaalo kriimooyinka qashinka ayaa lagu darayaa mercury waa sun aad toxic u ah environmentiga galaysaa dadkii cuntada u galaysaa biyihii water systemski biyihii ayay galaysaa suntii marka degaankii saameyn u leedahay iyo qofkii caafimaadkiisana saameyn weyn ayay u leedahay fariinta aan rabo gabdhaha Soomaaliyeed inaan u diro waxay tahay tan ugu horeyso waa in aan ma aragtay midabkeena ku faraxsanaana hadduu qofka cad yahay hadduu madow yahay sidoo Ilaahay uu qofka waa inuu ku faraxsan yahay maxaa yeelay qofka hadduu isan kalsooni jirin wax kasto uu qofka ismaray wax kasto isku cadeeyo waligiis qofka wax uma tarayo marka gabdhaha Soomaalida waxaan kula talin lahaa in aysan dadka ka ogolaanin colorism in loo isticmaalo oo midabkoodii lala dagaalamo ama la nacsiiyo tan kale gabdhaha hadeertan marsado waxa la isku cadeeyo waxaan ka dhigi lahaa in ay joojiyaan sida ugu dhaqsaha badan ayagoo ka fikiraya caafimaadkooda ayagoo ka fikiraya haday qoys leeyihiin qoyskooda caafimaadkiisa maxaa yeelay saameynta qofkaas iscadeynayo haday gabadha qoys leedahay iyada kaliya kuma saameysno hadda cilmi baaristeeda oo Mareykanka qofkii markaan jirkiisa ka helnay sunta mercuryga gurigiisa ayaan tagnay hawadii gurigi ayaan ka helnay maxaa yeelay qofkii isticmaalayay finjeerku gelinaya wuxuu isticmaalayay way contaminate gareynaysa way sumeynaysaa cuntadii cabitaankii musqushi qofkii meeshuu ku marsanayo sariirtii uu qofkii ku seexanayo hawadii dhan guriga ayaa waxaa noqotay sunta mercuryga waxay noqotay in ay qaadato muddo 3 bilood guryahaaseytun looga nadiifiyo suntaaseetun taas waxay ku sheegaysaa qofka isticmaalaya kaliya inay saameynta ku ekeen dadka la nool xataa ay saameynta u leedahay marka adiga kaliya ha iska fikirin waxa ka fikirtaa dadka kale oo aad la nooshahay ama ilmahaada ama qoyskaada dhan ka fikir waxa kaloo ka fikirtaa caafimaadkaada waa tan ugu horeysa caafimaadkaada inaad ka fikirtid iyo caafimaadka deegaanka xataa ma aragtay saameyntaaseytun in aadan ku yeelan marka in waxa kale aan rabo inaan idin xasuusiyo wax kastoo la isku cadeeyo inay sun ka samaysan yihiin wax la isku cadeeyo oo dabiici ah ama wanaagsan ma jirto soo marka qofka bini'aadamka tan ugu muhiimsan waxa waaye naftiisa inuu ku qanco uu aamino haddii qof hadda isticmaalayo gabar isticmaalayso fiirsanaysa ama wiil isticmaalayo waxaan la isku cadeeyo ay fiirsanayaan in ay joojiyaan maxaa yeelay ka gaar way leeyihiin in maqaarkooda uu soo noqdo u reesto muddo ayay qaadan doontaa u reesana iyo caafimaadkooda jirkooda gudihiisa si aysan saameyn ugu yeelan qofka inuu joojiyo uu naftiisana uu ku qanco hadduu qofka caawinaad rabane in uu caawinaad uu raadsado aniga waan fahansanahay wax oo ma ahan qofkii bini'aadamka ugu imaatay in uu asiga sameeyo wax dadkii society-gii bulshadii ay ku kalifeen qofka in uu isticmaalo marka taasna ogaaw qofkana in uu ku qanco jirkiisa aad ayay muhiim u tahay